kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta joogteen iyo soo noo daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal qurux badan halkan waa badbaasho fadlan subscribe channel-kan haddii aad ku cusub tahay subscribe ka iloowan share garee comment like inta waa ku maasantiin waa wiilkan xoogaa qalad mashiya ma fahmi kartid inka micnaha waa wiilkan yes waxaan rajeynaa marka inaad channel-ka halkay doontaan waa maasantiin caaw maxaa yeelada muuqaalkan wuxuu saabsan reaction waa video qurux badan qurux badan markaan is leeyahay waxaan inta badan video aan isdhaha uu ku haboon reaction aan ka bixiso ayaan ka bixiyaa iyo sidoo kale waxaan is leeyahay bulshadana uu ku haboon video ana macnaha la share gareyso ayaan la share gareeyaa okay marka video ana bilaabeynaa mar rabo inaan war idin ku daaliyo نوبلا فيديو مرك وش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال waxaa ila jooga saaxiibkayga Farxaan oo aanu dhaqan celin geenay dhowr bil ka hor isla markaana isaga uu codsaday in uu dhaqan celintaasi laga bixiyo okay video aniga wuxuu ku saabsan idin sheegin laakiin inaga fahanteen videogan waxa iska durdur media waa wiil hadda koor ay geeyeen waxa loo yaqaano dhaqan kadibna aan aragnay asoo YouTube ka soo muuqdo la leeyahay tuug waaye la qabtay dhahay waxa ila soo baxay tatay ama bastoolas u taqaaniin waxyaabo noocaas ah ku aragnay markii dhaqan celinta la geeyay kadib ayaan arkaynaa afaraas hadda wuxuu joogaa ka soo muuqda durdur media haastoobay u dhinac taagan wiilkan haddana markale wuxuu leeyahay waa la geli gaaray waxyaabo koronto iyo wax la mid ah ayaa lagu qabtay iyada oo lagu qasbaa waxyaabaha aan ogoleen waxyaabaas maxaa muuqaalkan sii daawan maadaama markii uu dhaqan celinta aan geenaynay uu isaga codsaday bixintiisna isaga codsaday sidaas si lamid ah arinta xiisaha leh waxa waaye hadda waxa uu ku jiraa noloshii hore qayb ka mid ah yaa kugu celi noloshaas maxaa ugu wallahi horta taas horta noloshaas oo isdhaay wallahi nolol nadiif ah heshiyo maanta mustaqbal ah heshi isdhaay wallahi rag oo xasan ku kacsan inay heshay koronteesi saas ay gashay meeshan koronta looga dhajiyay koronto waa taagi wuxuu tahay rag xasan ku kacsan ayaa heshay ayaa korontay horta marka hore rag xasan ku kacsan ayaa helay ayaa koronto ugu qabtay ama korontay dhexta laakiin rag xasan ku kacsan ayaa heshay yaa qaldan anigi asiga iskaftan marka af Soomaaliya waa xogaa gidigidna sometimes waa loo hadlaa laakiin ana sida ila saxsan waxa ila saxsan rag xasan ku kacsan ayaa helay koronto uu qabtay ama korontay waa dhig kartaa all right kana koronto si amal ayaga maxaa gaalshir macna Mareykanka miya loo fiilo waaye xabsiga Mareykanka la sheegay koronto horta anagu waxaan u jeednaa in inta waxa si ay ka tahay laakiin sidoo shay koronto wuxuu leeyahay koronto ayaa lagu qabtay anoo lagu qasbaa in xasan wax ka sheego marka hadii ay sax tahay waa arin aad u foolxun qof inaa qabato aad dhahdo hebel wax ka sheeg hadii kale koronto ku qaban ama aad ku qabatay la yor dadkiis hadii ay sax tahay dadkiisa sameeyeen wax fiican ma sameeyeen waa youtuberada way isdhaanay wax ka sheeg laakiin in ay gaarto heer koronto isku qabto taas dil waaye waa ku dilaa hebel wax ka sheeg macnaha taas waa hadii ay sax tahay warkan kan sidaas dad ay ku qasbeen macnaha si wadan muuqaalka meel ay geystay guriga la geystay koronto la ugu qabtay si aan ku caayo xarfan toob si loogu soo bixi kumate
walaalkaaga hadda oo micnaha in la dhaho xasan toob ninkii u dhaqan celinta shalay geeyey ayaa hadda caynaya ujeedka waxaa in aniga macnaha liigu weeraro weerar ahaan oo adiga kaa soo weeraro sax maalintaas saa u diidi ayaa koronto igu qabtay waxaan fadhiistay dabaroorkii jirtay oo aad iga qaaday sanfeli noloshiisa isla markaana haddana noloshiisa dib ugu qabtay waa wax walaahi horta barnaamijyaadkan inkastoo youtuberada muqdisho aan ku baranay waxyaabo tuurtuur ah haddana Soomaaliya waxay dhahaan runtaada badan beentaada badan aan ku wada macnaa waxay u baas baxdaa runtaada marka waxaan horta haddii ay sax yihiin xitaa macnaha yaa see lagu aaminaa waaye tan lafteeda tii korontada haddii lama tahay ka war ama korontada aysan jirin noowada barnaamijkan wuxuu u baahan yahay baaritaan haddii ay sax tahay in koronto qof nool lagu qabtay waxaan u maleynayaa in arrintaas aysan ahayn arrin sahlan qof lagu qabtay hebel wax ka sheeg ayaa horta lagu qabtay koronto qofkaas markaas chance lagu helay ama laga badnaa ama laga tabar badnaa wuxuu leeyahay asxaab tol ehel macnaha qof nool inaa koronto lagu qabtaas lagu yeelo macnaha arrin ciyaar maahan mar si daawadan video meeshuu sii maraa balan aragna cajiib ah xanuun badan wax laga xumaa maxaa lagu dhahay qabta ani xitaa inaa been ii sheego laga ma yaabo wallaahi been sheegin waxa marqaati lama aamini karo abas baafo qof kasta oo adi oo macnaha oo darbajiif ah in waxa ku imaanaa ku jafa ku kala soo tagaa waa soo wixii dhan waxa waaye wareeriso تيك هلا حسب حولها يا هدي معناه أنا وصح وركاد إنه صحيح إيو إنك لا ياكو آمن كرو أنت عاوز بافو أنا تبكان أو إن ما دوريها كبتي أنت بدن واحد دون إسكشين وشكل بدن إيمانا لكن حتى كورو جويا لو قبته سيد قارت مدي يوتيوبر يسوق بين إيكو هاي أسوق قرن هاي بيس تليفون لو واحد ولا هاي نكاسي هاي اللي يسوي مرسين التليفون كده أماك إيسيو مشروع همر أما دلة أما داي أصور هاي هذا مرك برامج كانوا ولا لقي على صوب جوري ساسا وقالي إن لقبتي وحلو رفتي مس ماشي وحلا جالسية أما كورنتو لو قبتي إن معقول وا إن هبين صوب قال جوري صور داعي وقتي هذا أنجون حالة ده كنت هاي واحد بدنا وسمع كرا مركا موالا سيودن ومديرين واجابين تاسو عقل باوا هاي تاسو توب إن ما أنت ورتو إسك عايب غنتو إسك فقر لقي ورتو عشان gabadhii aad loof ku ahaydna waxay ku xiran tahay waxay wax ka bartaa alxarameyn صح CK ayaa ka faala qaaday saaxiibkay King CK Films isla ma celinaya CK umaad celi horta maadaama CK qoftaadi boqoradeedii hore oo yahay insha Allah ma sha Allah ya waxaan leeyahay jazakallahu khairan waa aniga hadaa halaaway oo bashiir aan ku noqday qoftii aan mustaqbalka xaaska kaliya isaga ayaa ka faala qaaday maanta isaga ayaa gacanta ku hayo gobadha oo ka hadlaya waa gabar hadda ka hor durmeedii ay soo wadeen isaga labadooda uu dhahayay gabadhan anaan meel wada joognay ragga ka xiliya kan waaye darbijiif oo wadanahay gabadhii ugu dambeyn waxaa nolosheeda ka faala qaaday CK maasha Allah markaas muuqaalka laga soo duubayay shaxda waxay ahayd ninka in gabadhaas rag ka celinayay meesha ku dhaqaaleynayay laxbada marka barnaamij waxaa la soo dhejiyay jaliin ah in gabadhaas ay tahay boqoradiis mustaqbal uu ka leeyahay marka sheekada noo sii wada waxa waaye barnaamijkii waxa waaye saan ila meeray sida camal waaye
oo garabka ka taagan waxaan leeyahay jazaakallaahu khayran wixii ka faala qaadaya aniga horta noloshiida hore aan hadda rabaa soomaali weyn wixii daawanayo noloshiisa horuu rabaa alkulista alkulista haddii maanta aad u qabatid oo wax siisid 2 bil 3 bil hadda isku jiro waa ka baxaa futuq haddana wuxuu leeyahay noloshaan rabaa war meeqa qofaa hataa gaal shir la geeyo oo dhowr sano soo cabeen haddana ku laabanayo warniyow alkulista wixii looga aamuso xaq waa ma dhihi karaa oo koolada u dhuuqaan oo shib looga dhahayo oo looga aamusay sax waa ma dhihi karaa taas sax waa ma dhihi ay ileen aygiiba go'aan ma laha horta alkulista in la soo qabto social media uu keeno nin muddo koo lacabayay maadooriyo nooc kasta isticmaalayay wax maxaa la oo kareeban aysan jirin in bulshada lagu dhexdeeyo la dhahaa noloshaada ka faaqaada maadooriyo ku dhaafayo oo jecel la qofkan iska dhaafo laakiin ma dhaafi karo marka muhiimadu waxay tahay qof markii darbiga laga soo wado ama meelihii oo maxaa la ku dayacnay laga soo wado in la geeyo meel xanaan ah meeshaas noloshiis lagu kafaala qaado ama kooladii wixii iyo dragskii laga dhaqo qofkii oo nadiif ah meel la qacinana la geeyo la dhiso noloshiisa sanad iyo wax ku dhow ama sanad iyo wax ka badan markaas kadib qofka bulshada uu la qabsan karaa laakiin qof 15 sano ilaa 20 sano derbi jiif ah oo yaraan 10 sano derbi jiif ah koola iyo balaay iyo xashiish iyo nooc kasta maadoori ay tahay calaq la qabsaday ma u maleynaa si sahal ah inuu iskiga dhaafi karo arrimahaas marka fadlan dadka derbiyada laga soo wadaa ilaahay dartiis marka hore loo soo wada ilaahay dartiis noloshooda kala faal qaada kadibna si wanaagsan ha loo dhaqmo oo ha laga dhaqa waxyaabaha drugska ah laakiin sida lagu sameeyay dad badan abtoon ha ahaada aways bafo nikan iyo dad kale sidaas ma ahan sida saxda ah ee dadkaas markii la soo wada loola macaamilo soo waditaanka sax waaye okay waaye laakiin qaabkii dadkaas loo daryeeli lahaa loola macaamili lahaa ayaa ka maqan dadkan dadka soo wadaa marka waxaan rabaa muuqaalkii inaan intaas kusoo afmeero waxaan rajaynayaa inaan isla fahnay muuqaalkan waxaan idinka codsanayaa inaad share garaysaan dad kale aad gaarsiisaan sidoo kale janaalka badbaada show ay si toos iga daawanaysaan subscribe ay saartaan waad ku mahadsantihiin videoan daawashadiisa midkan iyo mid limid ah iyo midka qurux badan intaan dib u kulmi doono waa badbaado idin la sidaas iyo nabadgelyo